بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما أربعة لحدة بشا أغسطس سنة كالبكون لباتن يشن أو كوبهجن لبية طبنك بشا سفر سنة كون أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ دي هجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي حلشة وراركا قضبدا ساكا برامجكا آن إذي كوبهينانا وحا كمدا إيران أو سير رسمي اللو حقيجية إنا يهشي نظامك قنطالة الدفاع عركة الشينها HQ9P kuwaasi oo wax weyn ka bedeli doona xaaladda gobolka bariga dhexe isla markaasna Iiraan ka dhigaya meel aan lagu soo degdegi karin warbixin xasaasi ah oo arrintan la xiriirta ayaan idin soo gudbinaynaa maamulka Trump oo doonaya in xukun dilaha lagu fuliyo nin magaalada Washington ku dilay 2 qof oo ka mid ah shaqaalaha safaaradda Israa'iil ee waddankaasi abanduulaha ciidanka Israa'iil oo laga dalbaday in uu gadood sameeyo oo uu qabsado xarumaha dawladda oo ka mid yahay baarlamaanka iyo goobaha kale haddaba maxaa loola jeedaa baaqan yaa jeediyey sheeko cajiib ah oo arrintan la xiriirta oo warbaahintu ay hadal hayso ayaan idin faahfaahin doonaa ergeyga Trump oo maantay magaalada Moscow wada hadal kula yeelan doona mas'uuliyiinta Ruushka si xiisadda hoos loogu dhigo Israa'iil oo shaqaalihii safaaraddeeda mid ka mid ah wadamada Yurub la soo qaxday haddaba sidee wax u jiraan maxay tahay sababta arrintan waardii faahfaahin doona midowga Yurub oo si ba'an uga soo horjeestay qorshaha Netanyahu uu ku doonayo inuu ku qabsado Mareyka Gaza dhammaan wararkan iyo weliba warar kale oo faahfaahsan iyo wixii war ah ee degdeg ah ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaan si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wahagaag saaka waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan oo war weyn oo ka soo kordhay warkan wuxuu la xiriiraa in Iiraan gacanta ay ku dhigtay oo ay heshay nidaamka difaaca gantaalada shiinuhu uu farsameeyay ee casriga ee loo yaqaan HQ9 arrintan ayaa lagu soo warramayaa in ay wax weyn ka bedeli doonto xaaladda gobolka isla markaasna Iiraan aan lagu soo degdegi karin haddaba saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxaya warar kala duwan oo warbaahintu ay faahfaahinayso waxaana la sheegayaa in la helay xog sheegaysa in markaa nidaamyadan cusub imika gacanta ay ku dhigtay Iiraan oo ay soo gaareen nidaamkan casriga ee difaaca hawada ee HQ9B ayaa kuwa shiinuhu uu farsameeyo taasi oo la sheegayo in markan Iiraan awoodeeda ay aad u xoojinayso sida lagu daabacay warbaahinno kala duwan oo ay ka mid tahay shabakadda arrimaha ciidamada ka faalloota ee Army Recognition nidaamyadan gantaalada ayaa la sheegay in lagu keenay heshiis isweydaarsi shidaal iyo hub oo dhex maray Shiinaha iyo Iiraan waxaana la rumaysan yahay in keenistoodu ay dhacday bishii la soo dhaafay ee July gantaalaha HQ9P waa nooc casri ah oo ka mid ah nidaamyada difaaca hawada ee Shiinaha waxaana uu leeyahay awood uu wax kaga soo ridi karo ama kaga hortagi karo cadowga ilaa iyo 260 kilomitir wuxuuna ku shaqayn karaa ilaa iyo 50 kilomitir oo dhirir ah isagoo leh raadaar awood u leh in markaa aan qalqal la gelin ama aan lagu samayn faragelinta dhanka elektroonikada waxay sidoo kale awood u leeyihiin nidaamyadani in ay beegsadaan dhowr bartilmaameed hal mar sida diyaaradaha dagaalka gantaalaha cruiska iyo xitaa diyaaradaha aan la arki karin ee raadaarada ka dhuunta ee F-35 ee Mareykanku uu farsameeyo Iiraan si rasmi ah warkan inkastoo aysan u xaqiijin haddana sawirro dayax gacmeed ayaa waxay muujinayaan in durbaba la dhisay xarumahan ciidamadu ay leeyihiin in la dhigay
nidaamkan gaar ahaan saldhigyo muhiim ah dowladda shiinaha dhankeedu waa ay dafirtay arrintaasi waxayna sheegaysaa in aysan jirin hub ay u dhoofisay dalal dagaal ku jira laakiin dayax-gacmeedyada sawirada laga qaaday ayaa waxay muujinayaan goobo la dhigay nidaamyadan difaaca hawada ee shiinuhu uu farsameeyo khubarada difaaca ayaa waxay sheegayaan in tilaabadan ay xoojinayso iskaashiga militari ee sii qota dheeraanaya ee u dhexeeya xukuumadaha Tehran iyo Beijing xilli xiriirka Iran iyo Ruushka ee dhanka hubka hoos u dhacay nidaamkan HKU-9P wuxuu noqon doonaa awood weyn oo Iran ay ku xoojiso nidaamkeeda difaaca cirka ee ku koobnaa S-300 iyo Bafar 373 iyo weliba Khordad tilaabadan ayaa muujinaysa dadaalka Iran ay ku doonayso inay ku casriyeyso qalabkeeda militariga iyadoo la jaan qaadaysa markaasi tartanka awoodaha waxaana la sheegayaa dhanka Shiinaha iminka inay u leexanayso Iran waaye haddaba xaaladan waxay ku soo aadaysaa iyadoo la sheegayo Ruushka inuu u gudbiyo Iran in weerar ku soo maqan yahay weerarkaas oo xilli kasta ay qaadi karaan Israa'iil iyo Mareykanka waynu arki doonaa wixii weerarada arrimahan ay ku soo kordha markan waxaynu u gudbaynaa xagga waddanka Mareykanka halkaasi oo la sheegayo in maamulka Trump ay doonayaan in xukun dilah lagu fuliyo nin la sheegay inuu toogtay labadan qof oo kamid ahaa shaqaalaha safaaradda Israa'iil ee ku leedahay magaalada Washington telefishinka CNN ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay ilo xoggaal ah oo sheegaya in waaxda cadaaladda ee Mareykanku ay qorsheynayso in ay gudbiso dacwad heer federaal ah oo ka dhan ah Elias Rodriguez oo loo haysto dilka laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda ee magaalada Washington taasi oo qayb ka ah hanaan qaanuun u oggolaanaya maamulka Trump inuu dalbado xukun dil ah ilo wareedi ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in waaxdu ay dambigan ku sifaysay dambi nacayb ku salaysan waa toogashada iyadoo qorsheynaysa in toddobaadkan la gudbiyo eedeymaha rasmiga warqadda dacwadda ayaa la filayaa inay ku jirto qodobo gaar ah oo u suurtagelinaya waaxda in dilkaasi lagu fuliyo ninkan haddii garsoorku uu xaqiijiyo eedeymaha ka dhanka Rodriguez kiiskan ayaa noqon doona tusaale muhiim ah oo muujinaya sida maamulka Trump ula tacaalayo kiisaska la xiriira bulshada Yuhuudda ee Mareykanka Rodriguez oo 30 sano jir ah ayaa lagu eedeeyay weerar hubaysan oo uu ka geystay kadinka hore ee madxaf Yuhuudda ay leedahay oo ku yaala magaalada Washington 22kii bishii May 2025 taas oo lagu dilay ama weerarkaasi oo lagu dilay laba shaqaalaha oo ka tirsanaa safaaradda Mareykanka oo safaaradda Israa'iil ee ku leedahay Mareykanka Rodriguez markii weerarkaasi uu fuliyay kama uusan cararin goobta laakiin wuxuu galay gudaha madxafka isagoo dalbanaya in loo yeero booliiska ilaalada amniga ayaa degdeg u qabtay oo u xiray ninkan markii la xirayna wuxuu ku dhawaaqayay Falastiin ha xorowdo madaxweyne Trump ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay nacayb ka dhan ah Yuhuudda halka dhaqaaqayaasha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in arrintan ay ka dhalatay carada is soo tareysay ee caalamka ee la xiriirta falalka Israa'iil ee ka wado marka Gaza markana xagga Moscow aynu eegno halkaasi oo ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe la filayo in wadahadallo ula yeesho mas'uuliyiinta Ruushka Stephen Witkoff ayaa la sheegayaa in maanta uu la kulmi doono mas'uuliyiinta Ruushka si wax lagu qabto xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka booqashadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo cadaadis dhanka diblomaasiyadda oo xooggan oo ka imaanayo aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in haddii Ruushka uusan wax horumar ah ka samayn qorshaha joojinta dagaalka ilaa iyo maalinta Jimcaha ee 8 bisha August in Washington ay ku soo reeyi doonto cunaqabatayn ballaaran Ruushka waxaana cunaqabatayntaasi ka mid ah cashuuro dheeraad ah oo lagu beegsanayo dhoofinta shidaalka Ruushka afayeenka aqalka looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlin Dmitry Peskov ayaa xaqiijiyay imaashaha Witkoff isagoo sheegaya in wadahadalladu ay yihiin kuwo muhiim ah oo macno leh isla markaasna uusan meesha ka saarayn kulan ergeyga Mareykanka uu la yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waaxda amuraha dibadda ee Mareykanka ayaa ka gaabsatay faahfaahinta ujeedada safarka taasi oo dhalisay shakiga ku saabsan guusha wadahadalka faraqayaashu waxay u arkaan booqashadan
mid fursad ah si looga fogaado cunaqabatayn ama xiisad cusub oo ka dhex qaraxda maamulada Washington iyo Moscow. waxay noo soo fool leh warbixin ku saabsan Israa'iil oo shaqaalaheedii kala soo qaxday safaarad ay ku leedahay mid ka mid ah wadamada Yurub. sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaynaa abaanduulaha ciidanka Israa'iil oo la yiri waa in aad gadood samaysaa oo aad soo wadataa ciidamada isla markaasna aad qabsataa xarumaha xukuumadda Israa'iil. waa sheeko cajiib ah. sheekadaas iyo warar kale intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound. waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rug caddaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano. Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta. wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow Qari Online. Qari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta. taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo. macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada. waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay. iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari Online. haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari Online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga soo dhawaada mar kale daawadayaan. wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Arbacada toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, facalooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa tahay Israa'iil cadaadis weyn, go'doomin iyo cambaarayn ayaa haysata. imika mid ka mid ah safaaradaha ku lahayd wadamada Yurub dal ka tirsan ayaa shaqaalihii laga soo raray. haddaba aynu eegno warbixin arrimahan ay ku aadan oo warbaahinta Israa'iil ay qortay saacadihii la soo dhaafay. shaqaalaha safaaradda Israa'iil ee magaalada Athens ee caasimadda waddanka Greece ayaa la soo daadgureeyay. waxaana la sheegayaa in xalay shaqaalahaasi lagu soo celiyay Israa'iil kadib markii mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeeda Israa'iil ay hareereeyeen xarunta safaaradda sida ay tabisay jariiradda Israa'iil Hayom. dibadbaxyada ayaa la xiriira dagaalka ka socda Mareyka Gaza, waxaana mudaharaadayaashu ay ku eedeeyeen Israa'iil falal xasuuq ah oo ka dhan ah shicibka Falastiin. dad badan ayaa waxa ay soo dhoobteen agagaarka safaaradda iyagoo sita calanka Falastiin kuna dhawaaqaya ereyo ka soo horjeeda duqeymaha Israa'iil. booliiska Greece ayaa adkeeyay ammaanka iyadoo wararkuna ay sheegayaan in mudaharaadyada mararka qaar ay ahaayeen kuwa ay ka muuqatay nacayb ay u qabaan Israa'iil, taasi oo keentay walaac weyn oo la xiriira amniga shaqaalaha safaaradda. ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Israa'iil ilaa iyo hadda, mana jiro wax khasaare ah oo soo gaaray shaqaalaha. dowladda Greece ayaa sheegtay inay si dhow la socoto xaaladdan iyadoo ballan qaaday in la hirgelin doono xeerarka ka dhanka ah cunsuriyadda gebi ahaanba sida hadalka loo yiri. xagga qasa aynu eegno. xalay waxaan idiin soo gudbinay Mareykanka oo sheegaya inay la wareegayaan howlaha gargaarka ee Mareyka Gaza. haddaba xalay sidoo kale waxaa isna hadlay goor dambe madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. muxuu sheegay? aynu eegno warkaas. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu oo si hadalka u dhigay ay ku dadaalayso in ay gaarsiiso gargaar Mareyka Gaza dadka ku nool, isla markaasna Israa'iil arrintaasi gacan ka geysan doonto gaar ahaan qaybinta. waxaan isku dayeynaa inaan cunno siino dadka Gaza jooga. Israa'iil waxay naga caawin doontaa qaybintiisa, ayuu Trump ku yiri hadal uu u jeediyey saxafiyiinta. hadda waxaa socda buu yiri dadaal lagu quudinayo dadka Gaza. waxaana imika aynu bixinay $60 milyan si arrintaasi loo fuliyo. laakiin mar la weydiiyey qorshaha Israa'iil ee qabsashada Mareyka Gaza, Trump wuxuu yiri ma sheegi karo wax ku saabsan qabsashada Gaza. waxay ku xiran tahay Israa'iil.
wuxuu intaasi raaciyey in dhowaan ay bixiyeen $60 milyan isla markaasna ay caddahay in dadka marayka Gaza aysan helin cunto ku filan. Trump waxa kale oo uu sheegay in wadamada Carabta laga yaabo inay ka caawiyaan qaybinta gargaarka, wuxuuna yiri arrintaasi gacan inay naga siiyaan ayaan rajaynaynaa. isla arrimahan guddiga midowga Yurub ayaa waxay sheegeen in weerarka Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato dhammaan marayka Gaza uu yahay dhiirigelin cusub oo aan la aqbali karin. waxay si xoogan u adkeeyeen in la hubiyo in gargaarka bini'aadantinimo si nabad ah uu ku gaaro dadka rayidka ee Gaza, iyo in markaasi si cad loo cabaareeyo isticmaalka rabshadaha naxariis darrada ah iyo gaajaysiinta ee ka dhanka shacabka Gaza, iyagoo sheegaya in loo baahan yahay in la ixtiraamo arrimaha xuquuqda aadanaha. xagga Israa'iil aynu qooraansanay xalay banaanbaxyo ballaaran ayaa ka dhacay magaalada Tel Aviv, waxaana la sheegayaa 13 qof in xabsiga loo taxaabay kadib markii la sheegay in dadkan ay ka soo horjeedeen dagaalka Gaza iyo qorshaha Israa'iil ku doonayso in ay ku qabsato gebi ahaanba marayka Gaza. laakiin warka ugu weyn ilaa iyo saaka Israa'iil ka taagan wuxuu yahay fariin loo diray abaanduulaha ciidanka Israa'iil oo la leeyahay waa inaad amar diida samaysaa oo aad qabsataa xarumaha dawladda. haddaba arrintan aynu eegno. wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa waxay sheegtay in aabbaha maxbuus Israa'iiliya oo lagu haysta marayka Gaza uu ugu baaqay taliyaha ciidamada Israa'iil Eyal Zamir in uu ciidamadiisa kala soo baxo marayka Gaza, isla markaasna uu u leexdo magaalada Qudus ee la haysto uuna go'doomiyo xafiisyada dawladda. wuxuuna yiri xukuumaddaasi waa xukuumad dila ah. arrintan ayaa timid intii lagu jiray waraysi uu siiyey television kanaalka baarlamaanka afkiisa ku hadla, waxaana markaasi la sheegay in aabbahan oo la yiraahdo Yehuda Cohen oo dhalay Nimrod Cohen oo ka tirsan maxaabiista Israa'iiliinta lagu haysta marayka Gaza, waxa uu sheegay in ay tahay in General Zamir uu iska casilay xilka, isla markaasna amar uu siiyo cutubiyada militariga si ay uga soo baxaan Gaza kuna soo jeestaan xarumaha dawladda, gaar ahaan baarlamaanka. wargeyska iyo dhico taxranood ee Israa'iil ka soo baxa ayaa sidoo kale waxa uu ka soo xigtay Cohen isagoo dhaleecaynaya Netanyahu, gaar ahaan qorshaha uu ku doonayo inuu dib u qabsado Gaza. Cohen wuxuu yiri xukuumadda Israa'iil waxay qiyaamaysay waddanka, halka kaliya waa in tallaabo laga qaado oo la daciifiyaa. wuxuu intaasi ku daray taliyaha ciidamadu waa inuu soo wataa guutada 98aad kuna soo jeestaa aqalka kaniisadka ee baarlamaanka oo uu hareereeyaa, halkaasna uu ku go'doomiyaa ilaa iyo xukuumaddu ay dhacayso xukuumadda dilaaga ah. waxaa la rumaysan yahay ilaa iyo 50 maxbuus oo qaar ay dhinteen in marayka Gaza lagu haysto meydadkooda iyo kuwa nool. hadalka Cohen ayaa waxa uu ku soo aadaya kadib markii hay'adda warbaahinta Israa'iil ay sheegtay in wasiirro aan la magacaabin ay daaha ka qaadeen in Netanyahu uu go'aansaday inuu ballaariyo howlgalka ciidan ee Gaza, inkastoo ay jiraan khilaaf arrimahaasi ku aadan oo u dhexeeya hay'adaha ammaanka ee Israa'iil. waxaa soo baxay wararka sheegaya in General Zamir uu si cad uga hor yimid qorshaha Netanyahu ee ah in si buuxda loo qabsado marayka Gaza, isagoo sheegaya in howlgal militari oo caynkaasi ah uu keeni karo in markaa maxaabiistu dhibaato ay soo gaarto iyo in markaa ciidanka dhibaato culus ay la kulmaan. sidaas darteed ayaa waxaa leeyahay Zamir waxa uu la kulmay dhaleecayn fara ba'an ooga imaanaysa xitaa wiilka uu dhalay Netanyahu ee la yiraahdo Yair Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda Gideon Saar, wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir iyo xubnaha xag jirka ah, kuwaasoo Eyal Zamir ku eedeynaya inuu khiyaamaynayo xukuumadda. waa si hadalka loo dhigay. waa tahay waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii xulashada wararka. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waxaynu barnaamijka xigay insha Allah inta ka horeysa. nabadgeli. Simodi oo ah suuqa ugu weyn ee dahabka ee bariga Afrika waxa uu macaamiishiisa ugu talagalay fursad cajiib ah oo marlaaraga. haddii aad dahab ka soo iibsato Simodi iyo haddii aad iska iibinayso labadaba, Simodi waxay ku siinaysaa fursad qaali ah oo aad ku guulaysan karto dahab kale, waana fursad soconaysa bishan iyo bisha soo socota. cajiib. Simodi ka iibso dahab ama iska iibi oo hel dahab kale oo aad ku guulaysanayso. fursadan guulaystayaashu waxay noqon doonaan
6 qof ee ugu horreeya waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. Faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashadda. ku soo dhawow Safari Remit, warkii ugu mudnaayo weliga aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo weliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay. macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda. isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid www.safariremit.com. waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga, mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto. Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK, mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika. Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud, baahi tiraha baahi loo qabay. Safari Remit.